hadda ka hor ayaa nin la weydiiyey waxaa la dhahay haddii lagu soo shiilo geel hal geel oo dhan haddii lagu soo shiilo oo miiska lagu soo saaro sidee u cuni laheed allah markaas wuxuu dhahay marba geesaa goosan lahaa maalin wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kasta joogtaan kusoo dhawo videogan maanta oo idin soo diyaray anigoo ah cali maxamed ismaan cali baashi insha Allah videoga maanta waxaa kula wadaagi doonaa sheeko dhiirigelin oo aan rajeynaa inaad ka faa'iidaysato noloshaadana aad ku dabaqdo si ay markaas kugu horseedo isbedel wanaagsan insha Allah intaan videogan maanta gudagelin waxaa jeclaan lahaa haddii aan nagala socoto YouTube kanaalkeena Ali Esse Online ama haddii aan nagala daawanayso Facebook page-keena ka baro waxaa jeclaan lahayd inaad nagu taageerto like subscribe iyo share waana dariiqada ugu fiican oo ama aragtay dad badan ku gaarsiin karno videogan ama informationada aan soo dhigno kanaalkeena aad u ilaalin noqdo okay in a like iyo share iyo subscribe taawato dhinacaada wax weyn ma ka ahan waa free laakiin dhinaceen waxay ka tahay dhiirigelin waxaana ma aragtay nagu dhiirigelinaysaa inaan soo diyaarino barnaamijyo kale oo aad iyo aad u tayo fiican insha Allah okay barnaamijkeena maanta sida soo sheegnay waa dhiirigelin had iyo jeerna waxaa jeclahay inaan aqriyo buugaagta dhiirigelinta buugaagta personal development iyo inaan barto barnaamijyo cusub software cusub sida u shaqeeyaan sidoo kale waxaa aad iyo aad ugu sii jeclahay in aan idinla wadaago waxyaabaha soo bartay waxyaabaha soo aqriyay iyo waxyaabaha ii shaqeeyay oo maaragtay noloshayda isbedelka aan ku dareemay in aan idinla wadaago oo aan wax kala qarsan waxaan rajeynaa idinkana in aad idinla wadaagtaan waxyaabaha aad isticmaashaan ama waxyaabaha nii shaqeeyay si aan maaragtay markaas u kala faa'iidaysan hadduu ilaa raali ka noqdo markastana waxaa ogsoonaataa inaana soo weydiisaan wixii talo iyo su-aal iyo soo jeedin commentiga aan ugu soo qortaan haddii aad jeclaan lahaydeen barnaamijyo oo programo inaan video kasoo sameyno nala soo wadaaga dhiirigelin barnaamijyo dhiirigelinada u baahan tihiin sidoo kale ciwaanada u baahan tihiin noo soo sheega insha Allah waa soo qaadan doonaa hadduu ilaa raali ka noqdo okay sheekada maanta videogan aan kusoo qaadanayna waxay qabsatay nin degnaa markaas magaalo weyn oo la soo koray dad badan oo asxaabtiisa waa la soo wada weynaaday isbedel ayaa dhacay ninkii asxaabtiisa wuxuu arkay in ay isbedel wanaagsan sameeyeen qaar iskuuladii waxbarashada dhameeyeen qaar waxay noqdeen engineer qaar waxay noqdeen businessman qaar dhaqaatiir noqdeen ninba wuxuu noqday laakiin asiga wax isbedel moo sameyn wuxuu dareemay marka xoogaa cuqdad ayaa gashay oo asxaabtiisa isla soo koreen yaraantooda oo isbedel wanaagsan sameeyay oo family yeeshay asiga laakiin waxba muu isbedelin sidiis ayuu ahaa marka maalmo kamid wuxuu go'aansaday ninkii in uu maaragtay magaalada iskaga safro wuxuu dhahay magaaladan oo asxaabteyda maalin kasta iga soo horbaxayaan ayagoo maaragtay isbedel weyn sameeyay isbedelka ninbasi u yaqaanaa nin wuxuu yaqaanaa dhaqaalo nin caafimaad nin waxbarasho laakiin ninka intaba muu haysan marka wuu ku xumaaday wuxuu damcay marka inuu magaalada iskaga safro si markaas uu u helo ama magaalada ugu soo laabto asigoo markaas taajira ama markaas wax qiimo leh inuu magaalada kula soo laabto oo markaas asxaabtiisa ka dhex muuqdo okay ninkii magaalada uu degnaa wuu isaga tagay oo uu isaga haajiray si maaragtay asigoo taajir uu ugu soo laabto oo markaas asxaabtiisa ugu dhex muuqdo intuu safarkiisa kusii guda jiray wuxuu la kulmay magaalo yar ama meel baadiye ah ayuu wuxuu u imaaday dad degan oo iska nabad qaba marka magaaladii soo dhex galay magaalada markuu centerka imaaday meeshay dadkii u badnaayeen wuxuu arkay meel ku tuuran oo meel wax daawanaya marka ninkan waxaa gashay xiiso waxay yihiin wax la daawanaya iska soo fiiri uu tagay meesha dadkii wax daawanayeen oo tagay wuu ka mid noqday asigana wuu la daawado dadkii marka wuxuu arkay wuu aamin waa ninkii wuxuu arkay goobta meesha nin lo aad iyo aad u weyn intuu dhabarka saarto intuu qaado meel kala geenaya wuu aamin waa wuxuu arkay markaasuu dadka weydiiyey wuxuu dhahay ninkan sidee ku dhacday lo'dan asigaba ka weyn oo culeyska badan inuu qaado oo meel kala geeyo sidee ku dhacday dadkii waxay dhaheen way ku qosleen waxay dhaheen ninkan waa nin xoog badan waa ujeedaa lo'da saas u qaada maalin kasta ninkii musaafirka ahaa jawaabta ay dadka siiyeen way u cuntam weyse wuxuu go'aansaday marka inuu u tago ninka lo'da qaadaya naftigiisa inuu tago oo weydiiyey su-aashaas ninkii u tagay wuxuu dhahay saaxiib waa ku daawanaya waxaa sameynaysay lo'dan kaa weyn oo adigaba kaa xoog badan sidee suurtagal kugu noqotay inaad dhabarka saarato oo haddana aad meel kala geyso ninkii lo'da qaada intuu fiiriyey oo qosle wuxuu dhahay lo'dan aa ujeedid culeyskeeda maba dareemi sababtoo ah maalinkii yareed ayadoo yar oo sanad jir kasii yar subax kasta waa qaadi jiray xeradaa kasoo bixin jiray meeshaasa geen jiray dadka magaalada degan maalin kasta u fiirin jiray anigoo lo'da yar qaada laakiin may arki jirin isbedelka iyo lo'da inay soo weynaatay iyo murqayga inay dhismeen dadka mayba dareemi jirinba haddii aa weydiiso waxay kuleeyihiin waa nin murqo weyn waa nin xoog weyn kuleeyihin bas marka ninkii musaafirka wuxuu maqlay wuu aamin waay markaas waxay ku noqotay la yaab
markaasuu ogaaday in maaragtay tilaabo meel dheer lagu tagi karo. marka ninkii u mahad celiyay asigoo farxad ka muuqato oo maaragtay wuxuu helay xalkii maaragtay iyo waxa kaliya oo soo baxay safarkiisa ayuu helay oo maaragtay jawaabtii ama furihii oo markaas guusha ku gaari lahaa iyo ogaaday oo ahayd markaas in aan la yasin tilaabooyinka yaryar oo markaas ku geersiin karo maaragtay guul aad u weyn. marka ninkii asigoo aad u faraxsan ayuu wuxuu ku laabtay magaaladiisa, isla markiiba wuxuu bilaabay inuu ganacsi business yar ka bilaabo oo markaas businesskiisa oo hormariyo, maalinba wax uu ku soo kordhiyo. adi muddo yar kadib ninkii way u kala kacday oo wuxuu helay maaragtay lacag badan iyo wuxuu raadinaya markaas hadafkiisa wuu gaaray oo uu ka salgaaray, sababtoo ah tilaabo maalinba wax ayuu ku soo kordhinaya noloshiisa. meeshuu ka bilaabayna qofna ma u fiirinayn sidee dadku u arkaan in maaragtay oo meel hoose ka bilaabay, dad kale waxay ka sheegayaan muusan tixgelinin. hoolihiis ayuu ka watay tilaabana meel dheer ayuu ku tagay. okay asxaabta, haddii aad jeclaan lahaydeen videoyaal noocan oo kale oo dhiirigelin, fadlan ha ilowin inaad markas like saartaan, subscribe-na ku noqotaan, asxaabtana la wadaagtaan. okay adiga hadda maanta video daawana iyo anigaba waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in aad dareemno in asxaabteena ay horumar sameeyeen oo anakana weli isbedel aan sameyn. marka arrinkaas waxaa kugu waanin lahaa, aniga nafsadeyda ku waanin lahaa in aan ka walwalin oo aan ku mashquulno keliya tilaabooyinka yaryar oo noo horseedi kara sida aan guulaha ku gaari karno. hadda kahor ayaa nin la weydiiyey, waxaa lahay haddii lagu soo shiilo hal geel oo dhan haddii lagu soo shiilo oo miiska lagu soo saaro sidee u cuni laheed allah? markaas wuxuu dhahay marba geesaa goosan lahaa. marka hadda adiga videoan daawanaya ha ku mashquulin dadka kale ee horumarka ay gaareen. haddii aragto dadka qaarkood sida social media oo kale, Instagramka ama Facebook, dad followers aad u fara badan haysta, haddii aragto ha ku mashquulin. waxa kaliya ku mashquulshaa in adiga hesha hal follower ama 2 subscribe haddii inaa hesho oo kaliya ha ku walwalin boqolaalka subscribe ee ay ka haystaan. waxa kaliya ku walwashaa waxa aa markaas gacmahaada ku hayso oo aa maamuli karto. waxaa ogsoonaata qofka orodka uu ku socdo inayna muhiim ahayn, ay muhiim tahay in aa ogaato meesha aa u socoto. tusaale ahaan haddii maanta gaari Ferrari la siiyo oo la dhaho oosla aroos ayaa ka dhacaya oo aan lii sheegin meesha ka dhacayo, waxaa iga hortagaya qof gaari dameer wato oo ogsoon adresska meeshuu ku yaalo. hana ka walwalin qof kale speedka uu ku socdo ama orodka uu ku socdo. wax kaliya aa ka walwashaa ama aa diiradda saartaa tilaabooyinka aa qaadayso iyo jihada aa u qaadaysid. okay markastana waxaa ogsoonataa tilaabo in meel dheer lagu tagi karo. okay haddii aad soo gaartay ilaa dhammaadka videogeena maanta oo ah dhiirigelin, waxaa jeclaan lahayn inaan ugu caawiso like, subscribe, share. waxaasoo dhan waa xaggiina, waa free. anakan waxay noo tahay runaantii dhiirigelin si aan u soo diyaarino videoyaal kale aad iyo aad u tayo fiican. waana mahadsantihiin. wixii talo iyo su-aal iyo soo jeedin markasta ha iloowin commentiga hoose. aad ayuu mahadsantihiin. waxaana inoo balna video kale.